maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dagaalka u dhaxeeyo maariish iyo qurux ku dhiigle. walaalayaal labadiina waxaad tihiin udub dhaxaadka bulshada Soomaaliyeed. haddaba waxaan rabaa inaan idin sheego dadka isku diraan maariisha iyo qurux ku dhiigle. waxaan leeyahay walaalayaal dadkaas dad isjecel weeye, balse ha kala geynin. fannaan la yidhaahdo mid ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed oo arrintan ka hadlay waana nimcaan hila oo si toos ah u sheegay dadka aamin wada ahan رفيقة موديسو انت يا walaalkaaga yeeba lagugu dirin ka digtoonaaw. an walaalkaa waa ahay qurux ku dhiigle walaalkaaga weeye. qof walba Soomaaliyeed oo adigina ku taageersan waa walaalkaa weeye. haddaba aniga ma jeceli in aan ka hadlo arrimaha maariisha iyo qurux ku dhiigle. dad waxaa jiraan oo saaxiib la ah qurux ku dhiigle iyo maariisha, iyagoo rabaan in ay ka faa'iidaystaan dagaalkooda. sababtoo ah maariisha iyo qurux ku dhiigle waa dad isku faraxsan weeye. haddaba labadood ha kala geynin walaalayaal, labadood ha kala geynin. waxaan idin daari doonaa heestii la yidhaahdo dadka aamin ma wada ahan. qaar baa jira rumaha faashaan. marar qaar waa jira in laysdagaalo, balse dagaalkan guddi cusub aa noqday. waa dagaalkii ugu ballaarnaa oo ka dhaca geyiga Soomaaliyeed. anka abwaan ahaan waxaan leeyahay ha isdagaalan. aniga mar walba waa idin taageeraa. waxaa kaloo soo kordhay in youtube-kii walaasheenna maariisha qof oo dantiisa ilaalsanaayo hawada ka saaray. walaal waxaan kuu sheegayaa si degdeg ah youtube-kaas u fur walaasheenna. yaa adab walaalka in la dilo ama walaashaada in hawada waxa walba iiga rabto in la saar ma jeceshahay may. haddaba walaasheenna youtube soo fura. walaalkayga maar hortay qurux ku dhiigle waa nin masaakiin ah, waa nin shacabka Soomaaliyeed u barteen qosolka madadaaliska. ilaa hadda ma dhihin maariisha ha qoslin, sababtoo maana qosolka badan horta ma fiican. taasoo waa ku raacsanahay. qosolka badan waxaa uu keenaa dhibaatooyin fara badan iyo keenaa. waa runteed waaye. yaa ka abwaan ahaan waxaan leeyahay walaalayaal dadkaas ka leexda, dadkaas jecel waaye ha kala geynin. yaa waxaa idin leeyahay dadkaas ha kala geynin. maariishaay keenada macana ilaa ma jiro tag qurux ku dhiigle dadka kule aa ku barteen. yaa haddii ninkan guursanayso yaa waxaan ku leeyahay ilaahay qof wanaagsan allah ka dhigo. aamiin dhaha aamiin dhaha aamiin. haddaba aniga waxaan wariye abwaan yaar jecel. youtube-kayga waxaa qoran wariye abwaan yaar jecel. tiktok waxaa qoran abwaan yaar jecel gmail. halkaas in kala socda mar walba wax walba soo kordho waa idin socodsinaa. waa maasantiin laag iyo subscribe aniga saaran. yaa wax ma dhibaato ka disiida waa kaas aniga waxaan ku hay farxadda adduunka. waa maasantiin.